dabli hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ayaa caawa fiidkii gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku toogtay 3 qof oo shacab ah kuwaas oo la sheegay inay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. 3 qof ee lagu dhaawacay magaalada Laascaanood ayaa kala ah 2 nin iyo qof dumar ah, waxaanay wararku sheegayaan in rag hubaysan oo aan la garanayn ay rasaas ku fureen 2 nin ee dhaawac soo gaaray, isla markaana ay xabad seeraara ah ku dhacday qofka dumarka oo markaasi ku sugnayd goobta weerarkani ka dhacay. Ragga falkan geystay ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen markii ay rasaaseeyeen dadkan ay dhaawacyada kala duwan u geysteen, kuwaas oo aan ilaa hadda la aqoonsan cidda ay yihiin, waxaana dhaawaca 3 qof loola cararay goobaha caafimaadka ee magaaladaasi Laascaanood. ciidamada ammaanka ee gobolka Sool ayaa la sheegay inay goobta gaareen muddo yar kadib kolkii falkani uu dhacay, balse ilaa iyo hadda wali lama xaqiijin ciddii ka dambeysay iyo sababta keentay dilalkan foolxumada ah, mana jirto cid loo soo qabtay. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool oo aan khadka taleefanka kula xiriirnay ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo falkan lagu dhaawacay 3 qof, balse maamulka kale ee gobolka Sool oo aan la xiriirnay ayaa noo sheegay inay wali baaritaan ku guda jiraan sida ugu dhaqsiyaha badanna warbaahinta ula soo wadaagi doonaan qaabka falku u dhacay iyo ciddii ka dambeysay. Maxamuud Saleebaan, Somali News TV, Hargeysa.